gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa ugu horeyntii ka hadlay xaaladda deegaanadaasi low yacado ka jirta laakiin waxaa ku soo kordhay in gobolkiisa aafo qaran oo shaar dawladeed huwan oo ma garanaysay waxay ahaday iyadoo shaarkii dawladda huwan iyo aafadaas ku soo kordhay gobolka Sanaag waxaana sidoo kale ragaadiyay qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo oo ka mas'uul yahay ninka maaliyadda u fadhiya gobolka Sanaag ee la yiraahdo Faysal Magafe deegaankaas wallahi cabashooyin badan bay sheeganayaan waxa xuduudda loo yacdo masaafurka horta waa lagu dhibaa dadka shacabka u kala gooshaya ee Soomaaliland iyo Djibouti aad iyo aad bay dhibaatooyin badan ku qabaan oo $30 waajib laga dhigaysa mid kale walaalkay aan kuugu daray xuduudaha Soomaaliland farxanow miyayna deegaanka low yacado ka tirsan ama xuduudaasi jirta xuduudda low yacado xuduudda wajaalo kale xuduudda laascaanood baa jirta xuduudo kala duwan oo Soomaaliland ku yaala baa jirta miyayna cashuurahaasi la idinka qaado idinla qabin lama qabo loo yacado way ka duwan tahay xuduudda loo yacado way ka duwan tahay dhammaan xuduudaha Soomaaliland oo dhan wajaale qofka reer deegaanka ee wajaale ee degan wajaale dhinaca Soomaaliland degan hadduu dhinaca shisho talaabay waxba lama weydiiyo haddii qofka in sharciisi kale $20 baa laga qaadaa oo kaliya halkan qofkii deegaanka ama seelca ka tago ama caashacada ka tago ama boorma ka yimaado ama $30 si socda iyo $30 soo socda laga qaada lacag dhibaatada kale ee deegaankaasi naga soo gaaraysa la sheegayo waxa weeye in khayraadkii iyo macdantii deegaanadaasi hadda laga dadgureeyo deegaanka low yacado khaasatan bariisle iyo toqoshi kolka waa ayo cidda hawshaasi gacanta ku haysa ruuxaantii arrinta waxaan rabaa inaan u iftiimo shacabka Soomaaliland dhammaan gudaha ama dibadda ha joogaan xukuumaddan siiraayo intii ay talada dalka la wareegtay iib bay ku bilowday gobolka Sanaag waxaana ku soo qaaday boob cad bay ku soo qaaday khayraadkii gobolkan uu lahaa hadday tahay tuubariga iyo haddii ay tahay tuubadaba tusaale ahaan badda waxaa ku jira lisan loo soo sameeyo ruqsado loo soo siiyey 8 maraakiib oo masaariya oo jaarif ka wada in gobolka oo badii Seylac ka wada xaqii barigana waxay ku darsatay in maalintii ugu yaraan waxa ka howlgala 30 baabuur oo loo yaqaan nooca sinotrakarka maalintii hadday ugu yartay 8 loor baa la qaadaa oo carra waxa carrada loo qaadaa dhinaca xukuumadda Djibouti deetana shirkada Chinese ayay la soo heshiiyeen ninka mukhallaska oo ah maaliyadda u fadhiya Faysal Magafe la yiraahdo iyo wasiirka macdanta oo isku reer yihiin iyo wasaaradda maaliyadda gabadha oo wasaaradda maaliyadda intaaba lisan waxay u soo siiyeen in rag dhiigmiirato ganacsato ma reer Soomaaliland oo dhinaca Djibouti degan inay camuudan gurtaan magaaladii laguma noolo baharad furan ma jirto dadka waxaan ugu baaqayaa shacabka gobolka Sanaag ugu baaqayaa dhibtu way taabatay kayar iyo kawayba way taabatay waxaan rabaa inaan ugu baaqayaa in magaalin dhow hadduu la yaro mudaharaad ka dhan carrada la daabulayo insha Allah isku soo baxaan oo u diyaar garoobaan sidii mudaharaadka loogu qayb qaadan lahaa oo xukuumaddan la iskaga dhicin lahaa faqashta ee ma garanaysaayay digmiiratada ay u soo jeesatay humadii khayraadkoodii u soo jeesatay wallahi dadkaasi xadhig iyo cabsiin bay ka qabaan go'aano diyaar inay u soo diyaar garoobeen siday uga hadlaayeen waad arki doontaan maalmaha soo socda hadduu xadhigga iyo cabsidaad sheegayso maxagga deegaankaasi low yacado waxa ka jira cadaadis aan nidaamka xukuumadda Soomaaliland ay ku maamusho talada dalka baalmarsan miyaa ka jira ruuxaantii hadda ku sheego nin maaliyadda u shaqeeya oo Magafe la yiraahdo iyo taliye qaybeed ka noqday gobolkan Sanaag asaga maayir ka noqday asaga barasaab ka noqday taliye rugeed ka noqday dadkii masaakiinta wuxuu ugu hanjabayaa shaarka dawladda deetana wuxuu leeyahay inta uu adeerkay xukuumadda siiraayo talada gacanta ku haya cidii madaxa kor u qaada waa kaga takhalusaya wuxuu adeegsanayaa nidaam qabiiliya oo reernimo ayuu adeegsanayaa dadkan waa dad masaakiin ah oo dacafaaya cadaadis badan bay ku qabaan qofka $30 laga waayo waa la xidhaa laba habeen iyo 8 saacadood si sharci daraa rugta loo yacdo lagu xareeyaa waxa ku shaqeeya walaalkay cidii kale hadasho waa loo caburiyaa
عبوي بدن باجرتا عاد جوجلين بدن باجرتا ظلمي بدن باكجرا قوميشي بدن باكجرا waxaan rabaa saxaafada sharafta leh ee gobolka Awdal inay xaaladan ay ku sugan yihiin dadka deegaanka iyo gobolka Sanaag ay u koorgalaan oo xaqiiqada ummadda u bandhigaan inta ka codsanaya saxaafada farxaan waxa jira suxufiyiin ka howlgala deegaankaasi gobolka Sanaag iyagu maxay uga hadli laayeen xaqiiqada ka jirta deegaankaasi ama u soo tabin laayeen ruuxaantii inamada suxufiyiinta halka ka golaa dadku isku ma wada jiraan in wanaagsan baa ku jirta laakiin intooda badan ninka maaliyadda madafaha maaliyadda ayaa walayisaday suxufiyiin way ka tageen ruuxay noqdeen rag u shaqeeya danta ninkaasi uu leeyahay wixii wanaagsan ee ay isagu doonayaan in bay u soo daayaan wax ay u hayaan ayaga bulshada ummadda u hayaan ma jirto haba yaraatee kolka haddii tallaabadani iyo cadaadiskan iyo jirdilkan iyo xarigan uu sii socdo xukuumaddiina ay sidaa idinku daawanayso maxaa idinka tallaabada idinku habbooneed qaadi doontaan maxay tahay wixii maanta ka dambeeya shacabku iyadoo weyn uu gaadhay min nooyacdo ilaa iyo gobolka Awdal dhibaatadu way saameysay gobolada galbeedka weliba aad ugu daran dee waxay dadku arkayaan hadda wixii maanta ka dambeeyay inay ka kici doonaan oo sida iskaga dhicin lahaayeen xukuumaddan faqasta ee waqtigeedii sii dhamaanayo